waxa ay dooxyada u dhexeeya Berbera iyo Hargeysa ay hakad geliyaan gaadiidka u kala gooshaya amaba u kala socdaalaya caasimadda iyo welibana gobollada bari ee Somaliland. Daawadayaal, dooxani waa dooxa Daragodle oo loo yaqaano Cabaadweyne, waxaana wasaaradda howlaha guud ee xukuumaddii madaxweyne Silaayo ay ka bilowday inay dayactir iyo dib u habeyn ku samayso kadib markii uu burbur xoogani soo gaadhay biriijkaasi, kaasi oo muddo dheer u taagnaa biriijkaasi oo ay ku guulaysan waayeen in ay dhammaystiraan. hase yeeshee xukuumadda madaxweyne Biixi oo 3 bilood ee ugu horreeyey ku jirta ayaana halkaasi ka sii anba qaaday, gaar ahaan wasaaradda ay khusayso ee gaadiidka iyo horumarinta jidadka ayaa dib u bilowday biriijkaasi, taasi oo wakhtigani xawli ku wada una muuqata wakhtigani mid gebageba ku dhow. waxaana tani ay ku soo beegmaysaa xilli roobaadkii oo wakhtigiisii uu taagan yahay inuu dhammaado biriijkani oo dhowaan xadhigga laga jaro. geesta kale waxa ay u muuqataa mid waxqabadkiisa uu ku darsan doono madaxweyne Biixi 90kiisa cisho ee ugu horreeya, maadaama 3 bilood ay dhowaan dhammaan doonaan. Cabdiraxmaan Maxamed Cige, telefishinka caalamiga SABC TV, magaalada Berbera.